bulshada inay shucuurteeda ku muujiso amarna ay u dirto baaq ma aha codsina ma ahan cabashana ma ahan waa amar loo diraayo madaxweynaha madow ee maamulka Jubbaland u taliyo madaxweynahaas madow waxaa loo sheegay in aan u sheegaynaa maanta gabi ahaan garoonka inuu ka soo degi karin wax hamiya uu ka soo gali karin gobolka Gado wax hamiya inuu ka soo gali karin macnuhu wuxuu yahay 7 sano nin jiro waligii aan taakulayn wax maartay wax qabad gobolkan uu ku yeeshan aan jirin maanta asagu nafta hayso inuu ku soo caariyo oo ciddu xiriirka u jaray ku adkaysay caariga ma doonayno waxaan halkaan fariin iyo baaq uga diraynaa shacabkii reer Garbaarey waa u jeedaan waxay hortaagan yihiin garoonkii diyaaradaha ee degmada Garbaarey waxaan baaq u diraynaa annagu colaadeed oo la taagannahay inaan ka xigno colaad inay Axmed Madoobe iyo wafdiga uu hogaaminayo ay garoonka aan hortaagannahay maanta ay ka soo degaan Axmed Madoobe ku-xigeenka koobaad iyo midka labaad ee degmada Garbaharey aadan siraad iyo cabdi bare ayaa shacabka ku dhiirigeliyay inuusan Axmed Madoobe iman karin Garbaharey inay amni tahay shacabkan ay xureysteen heegada ayaga isku tashteen deegaankooda iyo dadkooda ayaga ay xureysteen waxa weeye caalamka marqaati ka macnaha ma jirto Jubbaland matalan maaragtay xureyn u sameysay bal wali waxaan aaminsan inay dib u dhigeen tuulooyinkii iyo markii 7 degmo la xoreeyay sida darteed maanta on garan karna waqtiga iyo mandate-ka u dhiman Axmed Madoobe ma garan karna sabab uu Garbaarey ka soo doon waayo waqtiyaal badan oo aan u baahneenay oo aan sugaynay oo aan codsanaynay oo shacabkiisa iyo maamulkiisa aan ahaynay yuuna diiday hadduuna diiday annagana maanta waa diiday ma sha Allah waxa weeye waxaan rabnaa dawladnimo maanta waxaa la yiraahdaa maalinkii runta la yiraahdaa maalinkii runta isu sheegaynaa waxaa jirto shacabka Jubbaland wax badan bay ka hadleen maxaa la dhihi jiray dhibaatada haysato wax badan bay ka hadleen cunsuriyadda wax badan bay ka hadleen dhibaatada haysato wali ma dhicin maamulka Jubbaland qof ka mid ah oo hadlo oo ka hadlo dhaliisha ay leedahay Jubbaland ay yiraahdo waxa ka jira gudoomiyaha degmada Baardheere waad ogtiin dhaliisha uu ka hadlay waxa looga yeeray degmada Kismaayo alaana Kismaayo ku xiran yahay waxa weeye annaga marka maamulka Jubbaland madaxweynaha waxa ka hooseeyo waxa ay u sheegi laayeen dhibaatada haysato waa ama xil ama laga qaada ama Kismaayo lagu xiraa annaga marka saaka in lagu xiro Kismaayo iyo in xil laga qaado midnaba aan dan ka lahayn xil Allah hayana ma jirto oo qof maanta Jubbaland macnaha xil u haya ma jiro waxaan idin sheegaynaa annagoo maamulka gobolka iyo maamulka degmada Garbaharey maamulka Axmed Madoobe maadaama uu yiri dawladii xiriirkan u jarnay annagana xiriirkan u jarna waa u jarnay Kismaayo xukumaa ugu dambeyntii ayaa waxa hadal ka soo gabagabeeyay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gado ee maamulka Jubbaland Xismaan Nuur Xaaji Macalimow ayaa sheegay madaxweynaha maamulka Jubbaland inuusan iman karin sidoo kalena faahfaahiyay inuusan iman karin magaalada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado inay guriga ka soo baxaan la rabaa mishaar kuma qaataan xuquuqdooda lagu dhansaday Kismaayo inay ka hadlaan ayaga la rabaa darbiyaasha aysan ku dhuuman maamulkii aad ka gabanayseen waa kan idin hor socda shabaabna ha noo keenin oo maamulkii aad dirasana tiraan shabaabna ha noo keenin waxaan u jahaysanahay inaan la wada dirirno maamulka Jubbaland aan la dirirna markaan leenahay annaga xil u hayna barasaab ku xigeenna gudoomiye ku xigeenna intaba waa nahay waxaana ka wayni wax faa'iido wax faa'iidaan ka wayni waxaan rabnaa marka in loo istaaga cidda dawladda Soomaaliya diidanayadana waa shabaab in la diido waa qabnaa ibtisaam Suldaan Maxamed ibtisaam Fani TV-ga caalamiga ee Som News degmada Garbaharey ee xarunta gobolka Gado